maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi oo ay weheliyaan injineerada dekeda dhisaya ayaa maanta kormeer ballaaran ku sameeyay qaybtii cusbayd ee dekedii la dhisayay maadaama waqtigani uu halkaasi soo gaadhay beebabkii la soo dhigayay badda hoosteeda ee lagu garaacayay kuwaasi oo dhowaan ka soo degay dekeda magaalada Berbera. maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi ayaa sidoo kale tegay kaamka ay degan yihiin howlwadeennada dekeda waqtigani dhisaya. ugu horreyna maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi oo sharaxaya qalabkani cusub ee maanta soo gaadhay dekeda magaalada Berbera ayaa waxa uu yidhi maanta waxaan joognaa saadkii cusba ee dekeda cusub ee 400 mitir laga dhigayay sidaad ku arkayseen markabkii siday qalabkii ugu muhiimsanaa ee dekeda baaliska dabada xagan dambana ku aragtaan waa la dejiyay shaqada intii muhiimsaneed ee qaybta baddu imikay bilaamaysaa sida noocaada ah bishiiba waxa weeye kormeer ayaan ku soo marnaa sida shaqadu u socoto madaxda hawsha fulinaysay ee injineerada ahana warbixin bay nooga bixiyaan waxa kale oo isaguna halkan nala jooga injineerkii dekeda horeba dhisay ee qayb ka ahaa injineer Cabdiraxmaan oo isaguna had iyo jeer monitorinka iyo hawluhu si ay u socdaan ku daba jira maantana waxaan insha Allah aan warbixinta kaga dhageysanay injineerada halka ay dekedu marayso alxamdulillah rabbil caalamiin dekeda sidaan horeba u sheegay waqtigii schedule-kii caadiga ahaa ayay ku dhamaanaysaa bil kastana reportka saasaan ku helnaa insha Allah waxaan idin sheegayaa hawshii si habsami leh ayay u socotaa insha Allah waxaan rajaynaynaa deked tayo leh oo dhameystiran oo container terminal inuu inoo yimaado pilotka waaweyn halkan ku aragtaan waa kuwii badda lagu taagayay mid walbana wiishash gooniya iyo dubayaal gooniya ayaa garaacaya qaybtii beriga iyo buuxintiisa way dhamaatay hadda waxa loo bisha August waxa la gelayaa xilligii badda la qodayay qaybtii badda laga shaqeynayay inkastoo ay dabayl xagaa fara badan dhacayso shaqada aanay goor hore bilaabin oo 10 la bilaabay laakiin ilaa 10 ilaa 7 fiidnimo ayaa la shaqeeyaa insha Allah bismillaah taala markab kale ayaa isaguna imanaya oo sida qalabkii kale iyo wiishashkii. maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi oo hadalkiisa sii wata ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay security camera ay ku soo kordhiyeen dekeda magaalada Berbera ku daafuraya runtii security camera oo aan dekeda ku soo kordhiyay alxamdulillah rabbil caalamiin taasoo ay ku guuleystay shirkadda la yiraahdo Wall Security iyadoo oo subcontract siisay company kale Huud Engineering oo madaxda ka yahay Mr. Huud ninkan garabkayga midig taagan oo runtii ah ninka fuliyay shaqada oo aan shahaado sharaf ku siiyay shaqo wanaaga runtii waxa dekeda hadda ku xidhan 95 kameradood oo 24 saacadood ba shaqeynaya waxaan u sameynay control room 8 qof ayaa fadhiya oo shiftiyay isu bedelaya waxa kale oo gate 5 iyo gate 10 iyo 6 aan intaba ku rakibnay security camerada iyadoo akhriyaysa number plate-ka system-kan aan ku rakibnay dekedaha Africa waa kii koowaad runtii system noocaasa uu ku rakiban yahay insha Allah sheegay waxba dadku yiraahdo war dekedii waxba kama qabo waxay ku jirtaa meel godana marka dadku dibadda kama arkaan la yaab ma laha injineerkana waa kan maanta dhex jooga waad arkaysaa in inta quri aan taaganahay laba jibaar bay ka weyntahay dekedeeda dhisan dekeda la dhisaya waa 800 mitir annaguna halkan waxaan ku haynaa 650 mitir iyo 220 mitir oo workshop-ka ayaan ku haynaa marka waa loo goor min 400 waa 800 mitir. Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SAB TV dekeda magaalada Berbera.